sideed ku noqonaysaa hooyo aan caadi ahayn? آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل آمالنا نهر. Salaamu calaykum. Waad ku mahadsan tahay daawashada videogan. Ku soo dhawow nolol cusub. Magacaygu waa Yuusuf Sakeen. Waxaan ka maqnaa muddo 9 bilood ah. Aad ayaan ugu xiisay. Waxaan ararsanaa inaan indhaha hal mar saaro. Kadib markii la gaaray fasaxii iskuulka, waxaa ii yimid aabahay. Waan is soo raacnay. Kadibna waxaan nimid magaalada Luuq. Halkaas oo aynu gaari kale ka sii raacaynay. Maqribkii ay ahayd, waxaan fadhiisanay maqaayad. Meeshaas oo aynu bilownay inaynu shaah ku cabno oona ku sheekaysano. Saa u fadhinay hal mar unbuu si kedis intuu ii soo fiiriyay wuxuu igu yiri, Ayuub, hooyo ma jeceshahay? Runtii waxay u noqotay su'aal kedis ah, balse jawaabtu way iska caddahay. Waxaan ku iri, haa aabbo, waan jecelahay hooyo. Intuu wax yar iga aamusay wuxuu igu yiri, mid ogow hooyo inay ayaduna aad iyo aad ku jeceshahay. Allah, mahadsanid aabbo. Waxaad ii sii kordhisay jacaylkii aan awal horeba u hayay hooyo. Waxaadna i bartay jacaylka dhabta ah. Kadib markii aan fiiriyay channelkeena, waxaan arkay inay ku jiraan hooyooyin aan caadi ahayn. Hooyooyin runtii ka xamaasad badan dhalinyarada qaarkooda. Dhalinyarada qaarkooda kuwaas oo igu dhahaa, ayuu videoda noo soo yaree. 15 daqiiqo iyo 12 daqiiqo way nagu badan yihiin. Noo soo gaabi. Balse hooyooyinkan waxay dhahaan, Ayuub, noo sii dheeree videoyadaada. Allah, guushu ma sahlana. Saa darteeda dadka oo dhan ma wada gaaraan guushu. Soo ma ahan. Haddii ay fududahay dadka oo dhan way wada guuleysan lahaayeen. Balse waxaa lagu kala tegay hanka sare iyo rabitaanka aadka u xooga badan iyo xamaasad shidan. Haddaba anaga channelkeena waa channelka qoyska Soomaaliyeed. Qof walba Soomaali ah channelkan wuxuu ka helayaa wax uu ka faa'iido. Ardayga, macalinka, hooyada, aabaha, dhalinyarka, midka murugsan, midka jacaylka ku wareeray, mid kasta wuxuu ka helayaa waxa uu doonayo. Haddaba ii ogolow maanta inaan videogan u hadiyeeyo hooyo kasta oo doonaysa inay noqoto hooyo aan marnaba caadi ahayn. Hooyo magaceeda waarisa. Ma ahan adduunka oo keliya, balse sidoo kale hadduu alle raali ka noqdo maalinta aakhiro. Haddaba waxaan kula wadaagi doonaa tallaabooyin kaa dhigi doona inaad noqotid hooyo aan caadi ahayn. Maxay yihiin tallaabooyinkan? Tallaabooyinkan waa 5. Waxaad ku magacaabi kartaa haddaad doonaysid 5 xaq oo ay tahay in laga helo hooyo kasta. Oo ay tahay inay hooyo kasta isku dheeli tirto 5 xaq. Marka aad 5 xaq isku jaangoysid, isku dheeli tirtid, waxaad ku soo baxaysaa hooyadii aad weligaagaba ku riyoon jirtay. Haddaba maxay yihiin? 1. xaqa koowaad ee ay tahay hooyo kasta in laga helo. Hooyo kasta oo doonaysa inaysan noqonin hooyo caadi ah waxay tahay xaqa rabbigeeda.
hooyadaan caadiga ahayn waxay ilaalisaa xaqa rabbi uu ku leeyahay subxaanahu watacaala. alle wuxuu nagu nimcaystay nimcooyin aada u badan. nimcooyinkaasna qaabka ugu wanaagsan aynu u gudan karno waxay tahay inaynu ku mahadino marka hore, inaynu ku shukrino. haddaba hooyadaan caadiga ahayn waxay ilaalinaysaa xaqan oo ah xaqa ugu horeeya ee waajibka ah ee saaran. waxay u dhowaanaysaa in badan alle subxaanahu watacaala, waxay ku xirnaanaysaa in badan alle subxaanahu watacaala. wax walba oo nolosheeda ku saabsan waxay mar walba weydiisanaysaa alle subxaanahu watacaala. hooyada aan caadiga ahayn waxay ilaalinaysaa xaqa rabbigeeda. xaqa labaad, xaqa nafsadaada. haddii aada doonaysa inaad noqotid hooyo aan caadi ahayn, waa inaad ilaalisaa xaqa ay nafsadaadu kugu leedahay. nafsadaada waxay kugu leedahay xaq weyn. waxay kugu leedahay inaad daryeeshid, inaad ilaalisid, inaad kor u qaadid, inaad qiimeysid. nafsadaada waa inaad mar walba ku quudisaa wax ku taraya, wax ku horumarinaya. maskaxdaada maxaad mar walba ku quudisaa? maxaad sameysaa markaad guriga joogtid? maxaad akhrisaa? maxaad daawataa? aada uga fikir. nafsadaada maxaad ku mashquulisaa? waxaad ku mashquulisaa musalsalo iyo waxyaabo aan waxba ahayn, qabiil iyo siyaasad iyo wax jinni ka hadlaya, mise waxaad ku mashquulisaa nafsadaada wax sabab u noqonaya inaad adduunkan dhigatid raadkaaga, inaad magacaaga ku qortid baal dahab ah. maxaad sameysaa? maxaad akhrisaa? maxaad daawataa? maxaad ku fikirtaa? inta badan aada u ilaali. wax walboo nafsadaada geliya waa inaad aada u ilaalisaa. ka taxadir nafsadaada. maskaxdaada ku quudi waxyaabo wax kuu taraya, waxyaabo ku kobcinaya, waxyaabo ku horumarinaya, sida videoyadan oo kale. akhri in badan, dhegeyso in badan, isbar wax walba aad doonaysid. fursad ayaad haysataa. wax walba, meel walba, da' walba aad tahay, wax walba doonaysid waa noqon kartaa. ma jiraan wax kaa celin kara. haddaba nafsadaada aada uga taxadir, nafsadaada aada u ilaali. ka fikir caafimaadkaaga, daryeel nafsadaada, jimicsi samee, cuntooyin caafimaad leh. wanaad ka fikirtaa nafsadaada. xaqa ay kugu leedahay waa midaas, inaad ilaalisid dhinaca walba. dhinaca maskaxiya inaad u dhistid, aqoon ahaan inaad u dhistid, jir ahaan inaad u dhistid. cuntooyinka aad cunaysid inaad ka fikirtid, cuntooyin wax ku taraya, riyaado sameysid, jimicsi sameysid. qaabkaas oo dhan ayaad ku ilaalin kartaa xaqa nafsadaada. xaqa saddexaad wuxuu yahay xaqa ninkaaga. ninkaaga wuxuu kugu leeyahay xaq weyn, sida adiga baad ugu leedahay xaq weyn. maadaama aynu ka hadlayno videogan adiga, haddaba waa inaad ilaalisaa xaqa ninkaaga. waa inaad ninkaaga mar walba daryeeshaa, ka warhaysaa, taageertaa, mar walba garabkiisa istaagtaa, kula hadashaa hadalo macaan, hadalo dhiiragelin, hadalo farxad, hadalo aada u qurux badan. waa inaad mar walba uu kaa arkaa adigoo qurux badan, adigoo dhoola cadaynaya. waa inaad ka dhowrtaa waxyaabaha ka murjiya, waxyaabaha muraalkiisa jabiya. waa inaad sidoo kale ugu dadaashaa macmacaanka. haddaba ninkaaga xaq weyn ayuu kugu leeyahay. xaqiisa waa inaad ilaalisaa, inaad yeeshaa warkiisa hadduu yahay mid sax ah oo aan ahayn mid khaldan, oona uu rabbi raali ka yahay. haddaba xaqa saddexaad wuxuu yahay xaqa ninkaaga. xaqa afaraad waa xaqa caruurtaada.
caruurtaada sidoo kale waxay kugu leeyihiin xaq weyn. xaqa waxaa ka mid a caruurtaada ay kugu leeyihiin inaad u jeclaatid si shardi la-aan ah, inaad jecelkaasi u muujisid, inaad u sheegtid inaad jeceshahay. ma ahan nasiib daro waalidiinteena qaarkooda caruurtooda kuma dhahayaan waan ku jecelahay. wiil ayaa mar igu yiri weligeyga aabaheyga mise hooyadeeda ay ma dhihin waan ku jecelahay. ka waran soo dhib maahan. midoogow waxaa iman doonta maalintaas oo qofkeena uu ka shaleyn doono oo uu dhihi doono haddii aan dadka aniga aan jeclaa aan u sheegan lahaa jecelkaa u qabay. maxaa u sugaysaa maalintaas? ma baahni inaad sugtid maalintaas. hadda ayaad haysataa. hadda u sheeg caruurtaada, kaale ku dhaho hooyo, kaale waan ku jeclahay, waan ku jeclahay, sidaadaan kugu jeclahay, shardi la-aan ayaan ku jeclahay. kuguma jecli oo kaliya markaad baastid, kuguma jecli oo kaliya markaad warkeyga yeeshid, kuguma jecli oo kaliya markaad samaysid wax aniga aan doonayo, balse si kasta waan ku jeclahay, waana ku jeclaan doonaa. waayo gabadheeda ayaa tahay mise wiilkeyga ayaa tahay, cunugeyga ayaa tahay. ilmaha waxay kugu leeyihiin sidoo kale inaad ku dadaashid waxbarashadooda, inaad wax bartid, inaad bartid adduun iyo aakhiraba, inaad rabbigooda bartid, rasuulkooda inaad bartid, inaad bartid diintooda, sidoo kale inaad bartid nolosha si aysan u noqonin kuwa hodhow nolosha ku wareera. waana hadda bartaa kalsoonida, bartaa guusha, bartaa hadda waa inaad bartaa nolosha. sidoo kale waxay kugu leeyihiin inaad dareenkooda ilaalisid. dareenkooda waxaad ku ilaalinaysaa marka adiga iyo ninkaaga aad isqabsatiin. ka ilaali inaad horteeda isugu qaylisiin. may caruurta iska xareeya, qolka kusoo xira, kadib meel isla taga haddaa rabta isu qayliya markaas. muhiimadu waxay tahay inaad caruurtiina ilaalisiin. sidoo kale weligaaga caruurtaada waxun ha uga sheegin aabahooda. aabaha ma fiicna. wiil ayaa mar igu yiri xaaskeyga waxay igu dirtaa mar walba caruurteyda, waxay dhahdaa aabihiina waa bakiil, waxa idinma siiyo, aabihiina waa saas. maxaa dhacay? so asaga ma dhalin, so caruurtiisa ma ahan, maxaad ugu diraysaa? bilcagsi waxay ahayd inaad garabkiisa istaagtid, in mar walba aada u muujisid caruurtiina inaad isku ra'yi tihiin, inaad iswaafaqsan tihiin, mar walba inaad u muujisiin jaceylkiina. haddaba caruurta u muuji mar walba jaceylka, ha u muujinina dagaalkiina. mar walba u muujiya jaceylkiina, saa isku jeceshihiin. ka ilaaliya indhahooda, ka ilaaliya dareenkooda, waxyaabaha dhaawici kara. waxyaabahaas oo dhan hadhow markuu weynaado ilmaha ayay saameyn ku yeelanayaan. haddaba inaad saas oo dhan u ilaalisaa, ka fikirta caruurtaada. arrimahan oo dhan waa xaqa ay kugu leeyihiin. xaqa shanaad wuxuu yahay xaqa ay kugu leeyihiin dadka kale. dadka kale sidoo kale waxay kugu leeyihiin xaq. waxaa ka mid a xaqaas inaad caawisid qofkaad caawin kartid, inaad deriskaaga ilaalisid oo ka warhaysid, inaad wax walbo wanaaga u sheegtid dadka, inaadan noqonin qof dadka xanta, qof dadka wax ka sheega. may waa inaad dadka mar walba ka filataa wanaag. mar walba dadka u arag dhinaca wanaagsan un ka fiiri, dhinaca wanaagsan un ka fiiri. mar walba dadka ka fiiri meelaha ay ku wanaagsan yihiin, kuna amaan si ay hore ugu socdaan. weligaa ha noqonin qof cabasho badan, qof mar walba wax xun u raadiya. may yeelo indhaha shinida oo kale. mar walba fiiri waxyaabaha udgoon, waxyaabaha carfaya oo keliya, kuna amaan dadka si ay hore ugu dhaqaaqaan. markaas waxaad gelaysaa qalbiyada dadka kale. haddaba hooyada aan caadiga ahayn waxay isku dheelitirtaa oona ilaalisaa shantan xaq. marka aad shantan xaq ilaalisid oona ku socotid oo jaangoysid
oo noloshaada qayb ka mida ka dhigtid waxaan ku damaana qaadayaa hadduu alla yidhaahdo inaad noqon doontid hooyo aan marnaba caadi ahayn. haddaba hooyada aan caadiga ahayn waa hooyada ku dhaqanta shantii xaq aynu hadda soo sheegnay. ka fikir nafsadaada, ilaali waqtigaaga. waa inaad leedahay jadwal maalinle ah, jadwalkaas oo aad ku soconaysid. waa inaad aada uga fikirtaa noloshaada. waa inaad hadda samaysaa wax walbood jeceshahay, wax barataa, kursooyin qaadataa, nafsadaada dhistaa hadda. haydhihin mar walbo aan jadwal samaysto kuma socon karo jadwalka, waayo guriga waxaa imaanaysaa marti, guriga waa la buuxaa mar walba. may haddii gurigaaga la buuxayo mar walba, u samee dadkaas ayagana jadwal gaar u ah oo aad ayaga ku qaabilaysid, ayaga kula hadlaysid. balse mar walba waa inaad leedahay jadwal adiga khaas ku ah. jadwalkaaga gaarka waa inaad leedahay, oona aad waqti gaara u samaysid nafsadaada. waa xaqa ay kugu leedahay nafsadaada, inaad kobcisid maskaxdaada, inaad wax baratid, inaad aqoonta raasatid. waa xaq ay kugu leedahay. haddaba adigoo fiirinaya dadka kale xaqooda oo keliya, ha dayicin xaqaaga. waa inaad isku dheeli tirtaa. dadkaasna waqti sii, nafsadaadana waqti sii. haddaba haddii aad tahay hooyo la socota barnaamijteena, waxaan ka codsanayaa inaad hoos noogu sheegtid meesha commentiga. weligaagana ha hilmaamin, ku noolow mar walba nolol farxad leh, nolol jacayl leh, nolol cusub. aad ayaad u mahadsan tahay. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا لا تقل لوحدك